السلام عليكم maanta waxa waaye cashirkeena lixaad vector qaybtii hore waxaa ka hadalnay example cashirna waan isiisaa ugu shaqaysiin okay marka qaybtan waxa waaye waa vector marka waxaa ka hadli doonaa vector markay sheekada tahay parallelka waa maxay parallelka waxa waaye wax isbarbar yaala for example kasoo qaad waxaa haysataa vectorkan a vector wuxuu parallel leeyahay b vector c vector wuxuu parallel leeyahay laba ma fahanta parallel waa vector isbarbar yaalo for example markuu trainka socdo wadada uu train ku socdo waa inay parallel noqdaan parallel waxa waaye waxaa laga wadaa caadi ahaanta dhirirkan meel walba waa inuu isla facada markaasay parallel noqon kartaa okay macnaa dhirirka inuu kala duunaado maaha wuxuu dhan inay isla facadaan dee inta 2 mitir tahay inta 2 mitir inay noqoto waaye xaggana 2 mitir inay noqoto waaye ilaa iyo aakhiro macnaa 2 mitir inay u dhexayso waa labadan kasoo qaad bir ul waxay rabtaan ama vector okay marka waxaa haysanaa qaacida dhehayso haddii a vector oo parallel leeyahay b vector waxay la mid tahay calaamaddaas a vector oo lamida ta lagu dhuftay b vector t maxay ka dhigan tahay marka kasoo qaad labadan vector waa parallel kasoo qaad a'da waa saan a vector saan waa kasoo qaad b vectorna waa saan kasoo qaad parallel ma aha sida awooddeeda isku daya kana kasoo qaad b vector okay labadooda waa parallel kasoo qaad parallel waaye marka vectorkan a vectorka waa adiga macnaha kasoo qaad laba jibaarkiisa b vector marka ta'da waxay noqonaya markaas labo oo lamida a vector okay macnaha b vector waxay ka weyn tahay b vector oo ka weyn laba jibaar waa macnaha b vector waa laba jibaar a vector marka ta'dan waxa waa adiga tiraday rabtay noqon kartaa marka vectorka dheereynee gaabinay macnaha okay laga yaaba inaan si fiican u sharxin waxa ula jeedaa markii vectorkan dhirirkiisa fiirinaysa haddee labadooda parallel yihiin waxay ka dhigan tahay vectorkan oo lamida kan kalo lagu dhufta tirada waxay rabtay noqon kartaa marka t aan iska dhaha okay kasoo qaad waxaa haysataa a vector waxaa haysataa kasoo qaad 6.9 b vectorna waxaa haysataa 4.6 waxaa ku dhahay labadan vector ma parallela macnaha examplekeeni koowaad labadan vector parallel miya adigoona sawiran adigoona waxba sameyn adigoo coordinate system isticmaalin saa ku ogaa karnaa waxaa ku ogaa karnaa hal si anakoo isticmaalayna qaacidadeena a vector
la mid tahay haddii a vector laba calaamado sound dheer waaye ay parallel la tahay b vector taasi waxay la mid tahay a vector oo lamida ta lagu dhuftay b vector. marka muhiimadda waxa waaye ta'daas inaa helno. waxay ka dhigan tahay a vector waa 6.9 oo lamida ta lagu dhuftay b vectorna waa 4.6. okay marka haddaad rabtid inaad ogaatid waa inaa x axiska aad isla barbar dhigtid x axiska y axiska inaad isla barbar dhigtid y axis. marka waxay ka dhigan tahay 6 waxay la mid tahay ta lagu dhufta 4 waa x axiska kan kalena waxa waaye 9 oo lamida ta lagu dhufta 6. marka equation caadi ah waaye. marka ta'da waxay la mid noqon kartaa 6 loo qeybiye 4 oo lamida 3 loo qeybiye 2. ta'da x axiska waa 3 loo qeybiye 2. ta'da y axiskana waa fiirinaynaa 9 loo qeybiye 6 oo lamida 3 loo qeybiye 2. saddexa kor iyo hoos u qeybinay. okay isku tiraa helna. marka maxay ka dhigan tahay tirada waa isku mid x axiska iyo y axiska. okay marka ta'da waa isku mid. marka waxay ka dhigan tahay markaas a vector waa parallel la tahay b vector. macnaha waa sax markaas labadooda parallel. example labaad example-kan labaad ka soo qaad inta waxaa ku haysataa 5.6 oo a vector ah b vectorna ka soo qaad 7.5 soo qaad. okay labadooda waa maxay waxaa lagu dhahay ogaaw labadooda inay parallel yihiin ama haddii kale maxaa sameynay waxaa dheh okay haddii a vector ay parallel la tahay b vector taasi waxay la mid tahay a vector oo lamida ta lagu dhuftay b vector. ta'daa waxay noqon kartaa tiro macnaha vectorka weyney kartaa yarey kartaa. okay waxay la mid tahay markaas 5.6 oo lamida ta lagu dhuftay 7.5. marka waxaa haysanaa 5 waxay la mid tahay ta lagu dhuftay 7 ta'da oo lamida 5 loo qeybiye 7. tan kalena waxaa waaye 6 oo lamida ta lagu dhuftay 5 taas oo lamida ta oo lamida 6 loo qeybiye 5. marka waa ujeedaa labadan tiro way kala duwan yihiin. marka lama dhihi karo markaas ma dhihi karno a vector waxay parallel la tahay b vector ma dhihi karno waa qalad. okay tani waa parallel. qaacidadan iska fududahay iyo qaacido kalaa jirto. qaacidadeena kalena waxaa la dhahaa laga yaabo inaan videoga dambe kusoo qaato ayadana waxaasi adkaan. okay halaana ku joojinaynaa qaacidada parallelka halaana ku ekeenaa insha allah. ku mahadsan tahay daawashadaada. billahi tawfiiq.